Asalaamu calaykum waraxmatullaahi soo dhawaada dhammaan daawadayaasheena sharafta leh. Wararka degdega ah ee caawa ka imanaya dhankaas iyo dalka Ukraine. Waxaa jira in weli hardankii caasimadda dalkaasi Ukraine inuu weli socdo oo weli aanay gacanta ku dhigin ciidamada dalkaasi Ruushka. Oo ay kala kulmayaan isdaafaacid aad iyo aad u badan ciidamada dalkaasi Ukraine iyo muwaadiniinta qaatay hubka. Dhanka kale, waxaa iyada si dhammaystiran loo qabsaday caasimadda ama gobolka la yidhaahdo Kharkiv, kaasoo laha gobolka labaad ee ugu weyn dalkaasi. Gobolka aan dhahnaba gobolka koowaad ee ugu weyn marka laga yimaado caasimadda dalkaasi Ukraine. Dhanka kale madaxweynaha Ruushka ayaa heegan geliyay isagu hubkiisa nuclear-ka, taasoo ay u egtahay jawaab ku socota wadamada reer galbeedka oo cunaqabatayntii ay ku hanjabiyeen sida weydeenba intaan dagaalku bilaabmin ay imika aad iyo aad cunaqabatayn badan ay faraha kaga soo qaadeen. oo ay ka mid tahay xataa shirkadda Google oo laga leeyahay dalka Mareykanka inay ka joojisay monetization-ka, taasoo aanay u oggolayn cidda hadday warbaahinta tahay iyo haddii cid kaleba tahay inay lacag ka sameeyaan dhankaas iyo Google oo lacago badan laga sameeyo. Waxaa jira oo kale in wadamo ka mid yahay Ruushka, waxaan leeyahay Faransiiska inay ugu ballan qaadeen taageero hub dalkaasi Ukraine. Dhanka kale daawadayaal, waxaa jira ciidanka dalka Ruushka inay difaacaan ay filayn inay kala kulmeen ciidanka dalkaasi Ukraine. Halka ciidanka caasimadda ilaalinaya ay difaac aad iyo aad u badan ku jiraan iyo shacabkooda hubka qaatay, taasoo muujinaysa in difaaca dalka Ukraine ama ciidanka Ukraine uu adag yahay. La arkayay gaadiid aad iyo aad u tiro badan oo gubtay oo ama la burburiyay, gaadiidkaas oo lahaa dalka Ruushka, taasoo sida la sheegayay ciidanka dalkaasi Ruushka meel aan la filayn lagaga soo baxay. Dhanka kale, waxaa la sheegayaa ciidanka dalka Ukraine inay caawinayso diyaaradda la yiraahdo Bayraktar TB2 oo lagu farsameeyo dalka Turkiga oo hore uga sii iibsaday dalkaasi Ukraine intii aan dagaalkan bilaabmin. Daawadayaal, dhanka kale waxaa jira in qaxoonti aad iyo aad u tiro badan inay u gudbeen ama ay ka gudbeen xuduudda dalka Ukraine oo u gudbeen dalkaasi Poland iyo wadamada kale ee la deriska ah dalka Ukraine. Taasoo dadka la arkayay ee soo gaaraya dalka Poland iyo dalal kale ee xuduudda la leh Ukraine ay yihiin dumar iyo carruur, halka ragga wixii 16 jir ka weyn lagu qasbay ama lagu amray in ay hub ka qaataan oo ay difaacaan dalkooda, ay kasoo difaacaan cadowga soo weeraray Ruushka. Saacadaha soo socda waxaa la filayaa in lagu kala bixi doono cidda gacanta ku hayn doonta caasimadda dalkaasi Kiev, walow saadaasha qaar ay sheegayaan in ayaamaha soo socda xataa aan la kala qabsan doonin oo macnihii aanay Ruushka qabsan doonin oo ay gacanta ku sii hayn doonaan madaxweynaha dalkaasi Ukraine iyo ciidankiisa iyo shacabkiisa is wata. Magaalooyinka qaar waxaa la sheegayay in shacabku aanay u oggolayn inay ciidamada Ruushka soo galaan magaalooyinkooda, taasoo muujinaysa in amarka ay ku qabaan ciidamada dalka Ruushka inaanay shacabka waxyeelayn inta ay kamaradu arkayso. Sidoo kale, waxaa jira in difaaca shacabka isaga laftirkiisa aanu yarayn oo ay tallaabo geesinimo leh ay sameeyeen. Wixii kasoo kordhanaya.